مع الهجانتي ديان كوسر رهي ما دام إنه كوكرني مركا إنا قبل كهروا عن شروط اللوب هنا وبوحنا مشاكل مع كجتا هذا كده واقع قبل كهروا كوه ما هبشات هذا وتت نجنا عيبانا دولدين سومالودنا مديدنا وبلن قاضي كله ولا جيتميان قبل كهروا أو وتا دقمون كيس أصوب هي ما ممكن أصوب إن شاء الله دولتنا وحنوقف باقينا ومن رأسنا إنه قد واقع أتكل مجيو وديمقراطي وحنا قاضي مع الهجانتي ديان كوسر رهي ما دام إنه كوكرني مركا كورمير كنا وعادن لو سو تاغنيد مدو 4 سنه xildhibaanada ahayd si dareenka shacabka iyo fagaarayaasha laga go'aan gaadho loo gaarsiyo marka insha Allah hadana maadaama xilligii ugu macquulsanayd ay tahay kulli xildhibaankan soo dhaweyn wixii faahfaahinna banaanka noqon aad baad mahadsantiin bismillaah salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam alxamdulillah ilaahay ma hadda leo nabadna isku keenay marka xiga aad baad mahadsantihiin bulshada qaybeeda kala gedinsan ee ka soo jeeda deegaanka Harawa kullay idinkaana doorto inaad dhisaba fadhisano niguma tala heerkana gaarsay ilaa madale waa dad runtii sharaf leh wanaagsan oo in la matana lagu faaro sida aadigana dastuurka ku qoran yahay sanadkii laba jeer ayaan bulshada matalayna hoos u dhaadhacayna inaan la tashano wixii baahi jirtana aan soo ogaano deegaanada kale Ethiopia waa iska caadi in markay xildhibaanadu yimaadaan la yimaado ilaa airport la soo dhaweeyo inkastoon tayntan la durtaba inta jeer ba aan bulshadeenu tagay la tashan jinay waa kan marka ugu horeysay na soo dhaweyseen maxaa soo maanta airport la yimid way mahma habashaad tiraada watad najna ay baalan macnaheedu ana midabkiisuna cad yahay sheegid mu baan iska cad yahay marka halka waxaan ka dareemayaa in ku dhawaaqida gobolka Harawa ee aad u raagsateen awgeed aniyo xildhibaanada kale heer deegaan na in badan aan ka hadalay inagoo shacabkana la dareenahay imikana aad rabtaan kormeerkan hadda socdo in hawsha ku saabsan gobolka Harawa aan hooga saarno diyaar baan u nahay dowladda Soomaaliduna madiidana u ballan qaaday kale wala jiitamayaan inay jiitanka ka baxaan oo ay hore ugu dhawaaqaan gobolka Harawa oo magaalooyinkiisa cusub iyo degmooyinkiisa cusub wata annaga ka xildhibaan ahaan wanaga go'an tahay idinkana garab istaagiinana aad baan u soo dhaweynaynaa wixii inta ka dheero la xidhiidhana insha Allah waabanu joognaa shooyinkeena reer Harawa haday tahay bank iyo haday tahay buurahaba dhulkeena buuriga ban buu leeyahay geela iyo looba uu leeyahay beerahana waa la falaa waa meel barwaaqa watashi balaadan iyo wixii anagana ka qayb galayn oo sameyn lahayn insha Allah taasaan u soconaa marka waxaan leeyahay kulan wanaagsan xildhibaan Xasan xildhibaan Qadar iyo xildhibaanada kale hadda naga maqan oo Aasiya safar baxday iyo bulshada kale leeyahay haldoorka baadiyad maasantiin waa inoo kulan balaaran iyo faahfaahin balaaran salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillah salaamu calaykum haldoorka Harawa qurux badana haldoorka Harawa adka haldoorka Harawa haweyna ma sha Allah kullay waa xildhibaankii heer qaran oo maanta irbad ku soo dhaweyseen inkastoo ay aad ka tahay deegaanada kale Ethiopia in xildhibaanada marka hawlaha shaqo u soo dhaadhacaan la soo dhaweeyo maanta ugu horeysa tan inta doontaad airport ka timaadaan sababta airport ka timaadiina waa tahay mahma habasho wax tiraada watad najna ay baalam aanu wacdi yalan midabkiisuna cadi wala iska garanay wacdi yalan ma yiraahdo waxa halka ka dareemaya doorkan waxyaabahan ka tashanay ugu weyn tahay gobolka Harawa ku dhawaaqdiisa aad raagsateen horta ogaada gobolka Harawa nalooma diidano wala la jiitamayn marka waxaan rabnaa jiitankaas laga baxo hore la soo dhaweeyo maadaama la ballan qaaday taasun baan u nimid wada tashigu socon doonaa hadduu la yiraahdo buuraheen iyo banka waan tagaynaa waanu ka tashan doonaa dhulkeen waa dhul barwaaqo ban iyo buur balay geelay waan nahay beeralay waan nahay hooli waan dhaqanaa wax soo saarku iska fara badan yahay
marka kaliya waxa la rabaa qaab dhismeedkii in gobolka Harawa noo ballan qaaday mashaki baa naga jirta in gobolka Harawa ma garatay in la mid dhalo aan ka mideysana mashaki baa naga jirta in gobolka Harawa aan shuruuda loo baahnaa oo buuxinay mashaki baa ka jirta haddaba waxaan naga go'an inaan sii wadno dadaalka aan ku jirno sidii loo miro dhalin lahaa ama la hirgelin lahaa gobolka Harawa oo wata degmooyinkiisa cusub iyo maamulkooda cusub insha Allah guul iyo gobonnimo aan isku ognahay dawladana waxaan uga baaqaynaa waan raagsanay inoogu dhawaaqa ballantii waanaynaa wana sugaynaa leenahay inta ballanta la fulayna inaan codkeena muujino shacab ahaan iyo xildhibaan ahaan way naga go'an tahay codka la muujiyo waa dimuqraadiga waxana qaaday way tan asin kuwaday Harawa kuwaday salaamu alaykum allah andi sharfo inaan nimato ku faraxsanahay guriga gobonnimo insha Allah